6 wada hore loo sheegay 6 kala ku xigi doona 6 bridge baa la sheegay 6 kala ku xigi doona dadka reer Hargeysa dalka horumarkiisa lagu kala horeeya dawladna hoosena waxay hiigsanaysaa bilic hersaraysiyo laamiyal halbowlaha hanti qaran ku leeyahay ha ku haysan jeebkee jida lagu habeeyo caafimaad loo helo jahli looga hadar buuxo haysan cashuurte bixiyo ura haysan cashuurte bixiyo ura aku tuurin qashinkee ka habeegtaado halkii loogu talagalay kelmadeennan maanta waxay daaran tahay ogeysiis waxaan u dirayno dadweynaha soo galay waddada amba deerar ka dhistay amba jiingada ka sameeyey amba meherada yar ay ku ganacsadaan ka sameeyey waddada fayskeedii labaad baa socda oo meel fiican maraya fayskeedan labaad insha Allah billahi kariim wuxuu ku gabagabaysmayaa muddo yar oo kooban markaa shaqadu xawli bay ku socotaa aadna way u socotaa haddii la yidhaa maalinta salaasada fulin baa dhici doonta insha Allah ilaa wasaaradda qayb ka mid ah ay taabanaysaa wasaaradda deegaanka ismayaal badan way taaban doontaa insha Allah waddadaas waxa weeyaan waa waddo halbowla oo isku xidhaysa suuqa dhexe ee maynka ee suuqeena weyn sidaa daraaddeed waddadaasi waa waddo aynu kaga raysan doono saxmad fara badan waa waddo loogu talagalay dhammaan cabiradii waddada loogu talagalay oo dhan hadday noqoto sidewalkii dadku ay marayeen hadday noqoto biyomareennadii oo iminka biyomareennada faceka koowaad waa dhammaystiran yihiin markaa iminka waxaa noo hadhay insha Allah inaynu ciidda iyo carakaawada saarno daamurkana muddo yar kooban lagu saaro insha Allah billahi kariim way dhammaan doontaa muddo yar kooban indhihiinana waad ku arki doontaan waddadaa waxa raaca waddooyinka soo gelaya ee ka fudaydinaya waddada laftigeeda saxmadda ee suuqa u gudbaya ee baaralka la ee u tallaabaya ilaa dooxa markaa waddooyin badan oo saakaanu soo marnay oo qorshaysan baa jira qorshayaasha dawladda hoose iyo awaamirta laydin siinayaba shacabow hore waad u qaadateen waanaad ku mahadsantihiin iminkana mar labaad dadka waxaanu ka codsanaynaa sida gobonnimada leh ee sharafta leh ee noola shaqaysaan waxaa jirtay inan aanu saaka soo marnay oo ku faraxsan deyrkeeda in la dumiyo waxay garanaysaa macnaha waddadu uu samaynayso waddadani waxay u soo kordhinaysaa qurux waxay u soo kordhinaysaa nadaafad waxay u soo kordhinaysaa dhaqaale waddadu waxa weeyaan wax badan ayay noo taraysaa quruxdeennii iyo magaaladeennii iyo caasimaddeennii bay hagaajinaysaa waxaa naga go'an insha Allah billahi kariim muddo kooban in Hargeysa aad ka haqabeeli doontaan waddooyinka oo welibana waddooyin casri qurux badan la dhisi doono haddii la yiraahdo dhammaan degmooyinkana waxaan leeyahay qorshayaasha iyo waxa kala horeeya un fulimaha markaa hawarwarina degmooyinka aan weli la soo gaadhinow haysoranina waa la idin dayacay degmo aanu ilowsanahay ma jirto degmo kasta waa nuu soo soconnaa dadkeenna in badan oo propaganda ka sheekaysa iyo xumaan baa jirta kuwa xumaanta iyo propagandada ka sheekaynaya ha dhegaysanina qabyaaladda iyo qurunkana ha dhegaysanina waxaan idiin sheegaynaa oo idiin ballan qaadaynaa haddii alla yidhaa in dhinac kasta oo Hargeysa iyo waddo kasta oo Hargeysa in waddooyinku ay dhammaystirmi doonaan oo waddo laamiya mooyaane aanad god ku dhici doonin insha Allah biidnillahi kariim halkan aynu taaganahay waddadii beerta xorriyadda maraysay ilaa maxkamadaha halkaana shacabka ka imanaysay maalmihii u dambeysay sawirrada quruxda badan qaybtii hore ee dhammaatay laga soo qaaday bulshooyinka reer Hargeysa iyo bulshooyinka reer Soomaaliland oo dhani ay nagu hambalyeynayeen nagu soo ducaynayeen quruxdeedina ay baraha bulshada qabsatay qaybtii labaad baa markaa shaqadeedu ay socotaay oo harsan face 2 baa markaa saaka bilaabmay waa facekii ugu sii waliba quruxda badnaa macnaha weyn ee uu xambaarsanayna ahayd inuu jaamka magaalada ka yareeyo waa suuqa bartankiisa waddadii ku furnayd waa saldhigii dhexe iyo ereyadaas ay soo gaaraysaa dhammaan dhismayaasha saaka aanu soo wada marnay
xaafadahan soo wacyigelinay hore aan u wacyigelinay waraaqaha loogu geeyey dumista loogu qoray nambarka cas iyo rinjiga cas loogu buufiyey mar labaadna aan maanta soo wacyigelinay dadweynahan jecelnahay eriyada degan ee ku ganacsada ee degan waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaad mar afraad inay markii ugu dambaysay tahay dhismayaasha aan soo calaamadinay inay alaabta ka qaataan waddadaa banneeyaan inta badan waxaan soo calaamadinay waa dayraruun maaha guryuhu waa ku yar yihiin waa milya laba waa maqsino yaryar weliba maaha guri wax lagu sheegi karo waa deyr waa tembareeri marka horeba faylkaaga kuguma jirin dhul aad leedahay mu ahayn waa tembareeri berminantkaagii amba dhulkaagii rasmiga ah waad haysataa gurigaagii waad ku jirtaa carruurtaadii baa kuu degan inta aanad lahayn fadlan dowladda ayaa leh quruxda ayaa leh magaalada hargeysa ayaa leh intaa adiguna nagala qayb qaado quruxda dambana si aynu ugu dabaaldegno waxaan dadweynaha ka codsanaynaa in muddo yaroo kooban ay cagafyada dowladda hoose ay imanayaan barkoodna saa kala dumiyey inta kale hadhina digniintaan u yar korinay dhowr cisho ee soo socda insha allah wiigan gudihiisa isniinta amba arbacada ugu dambayn waa la dumanayaa markaa saasaynu ku wargelinaynaa saasaanu idinka baryaynaa idinkoo bilaabuuqa idinkoon waxba dhibaataynin intaa waddadu laydinka calaamadiyey rinjiga casi ku calaamadsan yahay iska banneeya aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan horumarka caasimadduna daan walba uu ka socdaa waddooyin fara badan baa socota 6 wadda hore loo sheegay 6 kale ku xigi doona 6 bridge baa la sheegay 6 kale ku xigi doona sidaynu wada ognahay dhammaan Hargeysa waxa ka socda horumar ballaaran oo ugu horeysa waddooyinku imika waddadan aynu joogno waad arkaysaan shaqa ka socota waxa aan ka codsanaynaa si ay ku jirto muwaadininnimo si ay ku jirto maxaan ku yiraahdaayay mutadawacnimo in ay si ay noogu suurto gasho waddooyinkan idinkaanu idin dhisanaa reer Hargeysa idinkaanu idin dadaalaynaa muddadii yareed ee koobneed ee aanu joogno wad ogtiin wax qabadkaanu qabanay waana noo ducayseen ducadiina in Ilaahay uu aqbalay si aanu dadaalka u sii wadno oo horumarka u sii shaqeyno idinkuna inaad nala shaqeysaan waxaanu ka codsanaynaa dadkii waddooyinka degan ama ku soo durkay 3 bilood baa la idin siiyay digniin inaad ka guurtaan sida ugu dhaqsaha badan salaasadaan ku soo noqonana insha Allah waxaan ka codsanaynaa inaad si dhaqso ah uga guurtaan una diyaar garoodaan